War degdeg oo ka soo baxaya fanaanada caanka ah ee Farxiyo Kabayre ayaa waxay sheegayaan in lagu dhex dilay showgii ay ku qabanaysay Germany, halkaas oo la arkayay muuqaal sawaxan iyo buuq goobtii ay joogtay. Fanaanada isku beddelay markii ay goobta soo gashay, ka bacdina isku dayday inay heeso ka qaado. Muuqaalka ayaa sidan ahaa. Dadkii goobta ka ag dhawaa ayaa waxay noo sheegeen in fanaanada gebi ahaanba showgii ay ku qabanaysay halkaasi la carqaladeeyay. Halkaasi markii ay soo gashay fanaanada ayaa dadka qaar waxa ay ku tilmaameen in fanaanadu ayba cabsaneyd oo ay noqotay qof aan iska ogeyn. Halkaasina in badan dadka ay ku sugayeen, goobtuna ay dad fara badan iskugu yimaadeen oo caraysani. Ka bacdi markii ay fanaanadu ka raagtay oo waqti badan ay halkaasi ku sugaysay, hase ahaatee muuqaalka ayaa waxaa ku dhex jira sawaxan iyo buuq iyo fanaanada oo laleey ka saara meesha oo ka qabta. Ayaa waxaa meesha handadaad iyo hagardaamo ay kala kulantay fanaanada caanka ah ee Farxiyo Kabayre. Ayaa waxay noqonaysaa markii ugu horeysay fanaanadu ay showyada ay ku qabsato dunida dacaladeeda iska horimaad ama qalalaase uu ka dhex abuurmo, taas oo awal aanay fanaanadu ka filan jirin, maadaama fanaaniintii kasii horeeyay ee laga carqaladeeyay showyo kala duwan oo ay ku qabsadeen dalka Germany. Hase ahaatee Farxiyo Kabayre oo runtii ah fanaanada ka duwan fanaaniinta kale ayaa waxa ay ahayd fanaanada runtii aad iyo aad bulshada ay u qadariyaan. Laakiinse xalay wixii dhacay ama meeshaasi ka dhacay goobtaasi waxay u muuqdeen kuwa aan waxba la iskula harin. Maanta taageerayaashii halkaasi joogay ee fanaanada caanka ah ee Farxiyo Kabayre goobtaasi u sharaxayay ayaa gebi ahaanba aad iyo aad uga cadhooday, waxaanay sheegeen in aanay ka filanayn fanaanada in waxyaabahan kale ay ula iman doonto bulshada, maadaama fanaanadu in badan la sugayay ay gudaha soo gashay uu mar qura sawaxan iyo buuq meesha isku beddelay iyo feer iyo laag fanaanada ay ku sigatay in lagu dhufto. Ayaa dad fara badan oo meesha goobjoog ah ku urureen fanaanada si loo badbaadiyo, waxaana goobta laga soo badbaadiyay fanaanada oo runtii aan la arkayn wejigeeda iyo waxyaabihii fanaanada loo geystay. Fanaanada ayaa sidii loo waday waxaa dibadda looga saaray goobtii, waxaana goobtii isku beddeshay muuqaal ka duwan muuqaalkii hore ee dadkii meesha goobjoogga ka ahaa ee dadkii isugu yimid ayaaba iyaga iskooda show u qabsaday oo meesha xaraabo iyo baadhi isku beddeshay, taas oo la arkayay shacabka oo meesha aad isku ruuxaya oo waxyaabo kala duwan oo hore lagu arag dadka marka ay meel iskugu yimaadaan la yimid. Si kastaba ha ahaatee fanaanada ayaa laga sugayaa warbixin ku aadan showgaasi iyo dhibta ka soo gaadhay fanaanada oo halkaasi gebi ahaanba showgeedii carqaladii ay ka dhalatay oo fanaanada la sheegay in showgaasi uu u kala kici waayay oo meesha ay buuqaysa waxaan ka dhacday. Jooga Germany gaar ahaan meesha ay ku qabsanaysay fanaanada bandhigga ayaa waxa uu noo xaqiijiyay in halkaasi uu ahaa meeshaasi ay noqotay meel runtii xaaladda dagaal isku beddeshay. Ka bacdi markii ay fanaanadu sugaysay in halkaasi ay show aan inaba caadi ahayn ku qabsato, hase ahaatee showgaasi uu noqon waayay sidii ay fanaanadu rabtay. Fanaanada caanka ah ee Farxiyo Kabayre ayaa ka timid magaalada Hargeysa, waxaanay timid halkaas iyo Germany, waxaana maalmihii ugu dambeysay baraha bulshada la hadal hayay loolanka u dhexeeya fanaanada caanka ah iyo fanaaniinta kale ee Germany ku sugan oo doonaya in halkaasi ay bandhig ku qabsadaan. Hase ahaatee dadka qaar ayaaba waxay sheegayaan oo ayba leeyihiinba fanaanada dadkii carqaladeeyay waxaa ka mid ah fanaaniin caan ah oo halkaasi doonaya in showgeeda gebi ahaan lagu kala kiciyo oo uu baaqdo oo aanay fanaanadu marnaba aanay halkaasi waxba ku qabsanin, walow aan ilaa hadda taasi la xaqiijin karin oo caddeymo dhaba aan loo haynin. Sidoo kale dad halkaasi ka dhowna aan wareysanana ay taasi ka gaabsadeen oo haba yaraatee aanay waxba ka soo qaadin. Fanaanada caanka ah ee Farxiyo Kabayre ayaa ah fanaanad runtii marka ay hadlayso awood leh, taas oo marka ay kaga duwan tahay fanaaniinta kale ee dumarka ah.
waad ku mahadsantihiin daawadayaal barnaamijkan aad sida fiican nala socoteen sidoo kale waad ku mahadsantihiin daawashada channelkeena ee Rugta TV fadlan haddii aad ka cusubtahay channelka subscribe noo saar jiliska furta oo la gareeyo asxaabtiin la wadaaga siina share gareeya